waa maalin bahda waxbarashada ee u ah farxad iyo dhiirigelin weyn in ay nala joogto DG-ga UNESCO runtii waqtigeeda cariiriga noo quurtay inay nagu soo sharaftay inay xamar timaado. UNESCO sidaa ka warqabtaan waxaa weeye UN-ka hay-adda ugu qaabilsan waxbarashada, aqoonta iyo dhaqanka. UNESCO waxaa moodaa inaysan muuqaal weyn hadda ku lahayn, laakiin taariikhiyan Soomaaliya iyo UNESCO taariikh dheer ayay isleeyihiin. ilaa waqtigii xorriyada aan qaadanay wax badan ayaan wada qabannay. maantana waxaa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqaadkii aan la lahayn hay-adda UNESCO. calaaqaadkaas wuxuu saamayn doonaa waxbarashada hoose, waxbarashada sare iyo dhaqanka iyo sayniska iyo technology-ga. waqtigii burburka kadib waxaan ku guulaysanay in aan dib u nooleyno National Commission-ki. National Commission-keenni maantay si wanaagsan ayuu u shaqeeyaa. calaaqaad wanaagsanna oo horumarin wuu la sameeyey UNESCO. sidoo kale UNESCO waxaan isla wadnaa mashaariic runtii xooggan oo dhinaca muxuu ahaa manhajka iyo dhinaca muxuu ahaa culture-ka intaba saameyn weyn ku leh. waxaan rajaynaynaa inuu aad u sii kordho haddii eebbe idmo. maantay waxaan jecelahay inaan aad uga mahadceliyo DG-ga oo nagu soo ziyaartay oo aanan airbortka ku ekayn ee noogu yimid soona maray museumka qaranka. muxuu ahaa maantana heshiis halkan nogula galay. runtii waxay dowlad ahaan noo tahay tallaabo aad weyn oo hore u qaadnay ayay noo tahay. waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo also sidoo kale muxuu ahaa Swan iyo bahda UN-ka dhammaantood in ay maantay soo sharfeen waddankeenna, soo sharfeen muxuu ahaa institutionskeenna, muujiyeen inay na garab taagan yihiin. waana ka mahad celinayn. waxaan ku leeyahay soo dhowow, waddankaagi waaye. waxa waaye hadda kadib meel xitaa usoo dalxiisi kartid way tahay waqtigaaga private-ka. aadaan ugu faraxsannahay ina maanta na dhex joogtid. waa mahadsantahay.